ciidamada geesiyaasha difaaca dowladda Puntland ee BSF waxa ay si joogto ah uga qayb qaataan in difaaca sharafka iyo qiyamka ummadda Soomaaliyeed si ay dalkooda uga xoreeyaan cadawga ku soo duulay. Dhanka kalena waxa ay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka iyo kor u qaadida nolosha aasaasiga ee bulshada. dhirtu waxa ay noo tahay hoy, har, dugsi iyo deerba, maxaa yeelay hoyga ugu wanaagsani waa kan dhirta laga sameeyay, harka ugu macaanna waa kan dhirta laga helo. dhirtu waa qurux dabiici ah oo aynu ku indho-doogsano, dhulkana ka ilaalisa xaalufka iyo nabaadguurka, bini'aadamkana ka qabata dabaylaha iyo duufaanada, isla markaana soo jiidata roobabka. ciidanka difaaca dowladda Puntland ee BSF ayaa wada qorshe ballaaran oo loogu magac daray guri iyo geed, kaasi oo soconayaba in ka badan muddo 8 sano ah. ciidanka difaaca dowladda Puntland ee BSF waxa ay geedkii ugu horreeyay sanadkii 2013 ka beereen magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. ujeedka ciidanka difaaca dowladda Puntland ee BSF ayaa ahay sidii uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta bilicda magaalooyinka waaweyn ee Puntland. dhammaan wadooyinka waaweyn ee faras magaalaha magaalooyinka Boosaaso, Qardho, Garowe, Gaalkacyo iyo deegaano iyo degmooyin ka tirsan Puntland ayaa dhammaantood waxa lagu taxay laguna beeray dhirtan oo qayb weyn ka qaadatay bilicda iyo horumarka deegaanka. madaxda ugu sarreysa ciidanka difaaca dowladda Puntland ee BSF ayaa qorshahan ku bilaabay iskaa wax u qabso, waxaana qorshahani uu ka socdaa dhammaan deegaanada iyo degmooyinka Puntland. ujeedka ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa ahayd in dhulka udugga ee Puntland ay ka dhigaaneen halka ugu dhiraynta quruxda badan guud ahaan geyiga Soomaaliya.